saddexdii toddobaad ee iminka ururkan uu jiray. sida gaarka inta layla soo xiriiray su-aalaha la weydiinayay waxaa ka mid ahaa ururkan Jeegaandiid yaa ka mid noqon kara, sidee looga mid noqon karayaa ururka siyaasadiisa ama barnaamijkiisu muxuu yahay, maxaad uga jeedaan macnaha kelmadan ururka magacaada soo qaateen ee Jeegaandiid. ma soo koobi kara su-aalaha bulshada iiga imanayay ama ururka ahaan noo imanayay, laakiin si haddaan kasoo qabtay 2 iyo 3 ugu muhiimsanaa, waxaan doonayaa halkan maanta inaan idinkala sheergareeyo oon halkan maanta idinka soo gudbiyo jawaabaha ugu macquulsan ee dadka aan doonaya maanta inaan la wadaago video kula wadaago. waxa weeye ururkan Jeegaandiid waa urur ay ku buhoobeen dhalinyaro aqoon-yahan iyo haween reer Somaliland ah oo ku kala sugan dhammaan daafaha dunida. ururka xubno ka mid waa wadankii bay ku sugan yihiin, xubno ka mid qaaradda Yurub baa joogaan, America iyo Asia waa la joogaa. ururku isagoo 3 toddobaad oo quraata jiray wuxuu noqday urur sal ballaaran oo baaxad ballaaran oo dunida dacaladeeda kala duwan kula wadan jirayaal ku leh. sidaan horeba xeerkayaga ku qeexnay baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter ku baahinay, xeerka ururka waanagii idin kala soo wadaagnay halka hase yeeshee kulli haddii aynaan wada akhriyin inta videogan daawata ururka halkan haddaan mar laba ugu soo koobo. ururka xaruntiisu waa Hargeysa. wuxuu ururka u furan yahay qof kasta oo reer Somaliland. ururka wuxuu u furan yahay qof kasta oo nacab qabyaalada. ururku wuxuu u furan yahay qof kasta oo jecel in Somaliland, qof kasta oo muwaadini xaq u leeyahay inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba. su-aasha labaad haddaan u gudbo aadkan loo soo weydiiyey waxay ahayd waa maxay macnaha maxaad ku qaateen Jeegaandiid iyo waxay dagaalkiinu ku salaysan yahay oo quraata jeegaantan maanta talisa ayaad ku litihiin. taa macnaheedu waa maya weeye. Jeegaandiid waxa weeye cid kasta oo isu bahaysata sifa aan dimuqraadiyad ahayn, oo sifa qabiil isku doorata, oo siyaasad beelaysan ku midowda ayaa ururka Jeegaandiid ka soo horjeeda. waxaanu la dagaalamayna waxa weeye inay tay reero heshiiyaan, hadday mucaarad maanta yihiin oo reer mucaaradnimo ku heshiiyaan oo ay doonayaan inay ku buriyaan jeegaanta maanta talinaysa in iyaguna kaga hortagaan jeegaan labaad oo mucaarad ah, iyaga laftooda cambaaraynana. annagu waxaan ka soo horjeednaa wax allaaliyo wixii sifa qabiil ah ku hawlgelaya ku midoobaya. waxaan doonaynaa bulshadu inay aqoon ku midowdo, waxaan doonaynaa bulshadu inay ray wadaag iyo aragti inta isku aragtida ah inay meel isugu timaado ayaan doonaynaa. annaga siyaasadeedu saasay ku salaysan tahay. waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada reer Somaliland ee videogaygan daawata inay ka mid noqdaan ururka, inay ka dheeraadaan qabyaalada waxa weeye reeraysan, inayna ku qasbanaanin bulshadeenu qofka ay qabiilkiisa u soo dooraan ay yidhahdaan maanta qofkaasaan dooranaynaa, inaanay ku qancin ay isweydiiyaan qofkan waayo taariikhda adduunka baal noociyey qofkan